بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin wada salaamaya dhammaan walaalaha ku xiran bartan channelkan youtube-ka Dr. Cabdullaahi. Waxaan rajeynayaa inaad marun wax ka faa'iidaan muuqaalada aan soo gelino. Haddii bal ka waran diyaarad la kiciyo oo diyaaradaasi la duuliyo oo diyaaradaasi duuliyuhu uu kiciyo laakiin aanu duuliyahaasi garanaynin meel alla meel uu ku degayo. Halkuu ka dhaqaaqayay ee uu taagnaa wuu garanayaa waa duulay. laakiin diyaaradaasi waddada ay marayso ma garanayso halka ay ku degtaa. Qorshe intee leeg iyo nidaam intee leeg baa kaaga yaala inaad nidaamiso nolosha ka hortaada. Walaalayaal, waxa ugu weyn ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga doonaya subxaanahu wa tacaala waa inaynu isaga raali gelino. Waxa ugu weyn ee Ilaahay inaga doonaya waa inaynu jannadiisa ku guulaysano. Haddii aynaan taa gaadhaynin oo taa bini aadamku aanu gaadhi karin, ilaahay kama dalbadeen subxaanahu wa tacaala. laakiin waxa uu ilaahay raadiya. ilaahay baa wuxuu leeyahay wasaari'uu ilaa maqfiratin min rabbikum wa jannatin carduha as-samaawaatu wal-ardu uciddat lilmuttaqiin. war hoy u degdega ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo inuu ilaahay idin dambi dhaafo. wa jannatin carduha iyo janno u dadaala, jannadaasoo ballarkeeda ay tahay inta ay samada iyo cirka isku jiraan, samada iyo dhulka ay isku jiraan. waynu raadinaynaa, waynu jecellahay inaynu jannadaasi ku guulaysano. walaal, noloshaada qorshaha iyo inaad wax isku geegeyso ood suuraysato nolosha halka aad ka doonaysaa waa halka ay u dhimatay noloshu. haddii aanad ru'yo iyo hadaf iyo aragti ka lahayn nolosha, waxaad doonaysaaba aanu jirin, waxaad ogaataa in waddooyinka aad marayso oo dhan ay kusoo dhammaanayaan, ay soo afgo'ayaan, ay ku dhammaanayaan waxba la'aan. qofka socdo qorshe la'aan, waddo kastuu maraa way soo afgo'aysaa. waxay ku dhammaanaysaa bilaa qorshe, bilaa nihaaya. qorshuhu walaalayaal wax kale maaha, waa meeshaad maanta taagan tahay iyo halkaad doonayso inaad ogaato iyo waddadii aad u mari lahayd inaad ogaato. kullu maa fi lamr waa intaa. halkaad taagan tahay maanta xaqiiqso. halkeed aqoonta ka taagan tahay, halkeed ka taagan tahay ilaahay ku xidhnaanshihiisa iyo cibaadada, halkeed ka taagan tahay xirfadaha iyo skillska, halkeed ka taagan tahay dhaqaalaha, halkeed ka taagan tahay xiriirka bulshada iyo dadka la xiriirkooda, halkeed ka taagan tahay caafimaadkaaga, halkeed ka taagan tahay, halkuu taagan yahay. intaa ogow, waraaqadii qalin qaado. aad bay u wanaagsan tahay inaad waraaqadii qalin qaadato. qodobka ugu horreeya ku talinayo qorshahaagu si uu hirgalo oo mid macno dhalo u yeesho, kow waa inaad qalin iyo waraaqad soo qaadato oo bal isweydiiso min ayna ana, hoose maanta halkeen taaganahay. wax walba naftaada runta u sheegto. qodobka labaad ee ku xiga inaad qeexdo ood xadiddo halkeen doonaya. ahdaafta imkaan sheegaya, qorshooyinka imkaan sheegaya iyo yoolasha imkaan ka warramaya waa kuwa noloshaad ku soconaysa, noloshaada oo dhan. halkeen doonaya in dhaqaalaha ka gaaro milyaneer, ha isku yarayn. ilaahay baa wax bixiya subxaana wa tacaala. aqoonta halkeed ka doonaysaa, meel fog hiigso. dabeetna markaad saa u xadiddo eed qorshooyinkaas sidaa u wada samayso, ee qorshooyinkaas ay saa kuugu wada caddaadaan, jajabi 5 sano, haddana sanad. intaa ka horreysa adiga ayaa qorshaysanayee, laakiin sanadkii haddaynu u nimaadno iyo sanadkii qaybintiisii, waxaa talada wanaagsan ee culimmada takhdiidka ku taliyaan ama culimmooyinka qorshaha ka sheekeeya waxay dhahdaan 3 in 4 kuwaatar ama 4 qaybood qofku sanadkii u jajabiyo. 3 bilood iyo 3 bilood iyo 3 bilood iyo 3 bilood isku xidho. 3 bilood kastana qorshooyin u dhigo. iminka ku odhan maayo waxaa ka qorshaysa nolosha, laakiin waxaan kugula talinayaa qorshahaaga iyo hadafkaaga iyo ahdaaftaada markaad qorayso, bilaahi caleyka ha isku badinin. intaad xamaasadoto ood xamaasadda ku qaado, dhabarka ha iska jebinin oo sanadkii 20 hadaf ha qoranin, 3 bilood 10 hadaf ha qoranin. yaraystaa u dheeraystaa, ama waata Soomaalidu tirahdaa dheeraystaa wuu gaabsadaa.
laakiin haddaad marka hore isku yarayso oo jiq iskaga dhigto dee meel ka gaari maysid. qodobka koowaad markaa qor ahdaaftaada halkaad marayso. qodobka labaad waxaad samaysaa qorshayaad qortay waxaad la eegtaa halka aad doonayso. taa markaad samayso waxaad si yaro fudud u eegtaa waddooyinka ku gaadhsiinaya iyo waxyaabaha aad ku gaari karto. waxaan kaga baxayaa walaalayaal muuqaalkeena kusoo gabagabeynaya noloshu waa maalmo kooban, waa daqaa'iq, waa saacado, waa intaad nooshahay, waqtiga aad nooshahay weeyaan. waqtigaaga inaad maaraysaa waa daruuri. waa halka ay u dhimatay, waa halka lagu kala tegay. waa inagii muuqaalkii kaga soo warannay hore 4 shay ay bini'aadamku ka wada siman yihiin haddana ay ku kala tagaan, ay ku kala horeeyaan. bini'aadamku markaa waxyaabo ku kala horeeya waxaa ka mid ah qorshaha. waata la sheego daraasad ay samaysay jaamacadda Harvard University waxaa la yidhi arday baa waxa laga qaaday oo la daraaseeyey marka kuwa ay ahdaaftoodii u qoran yihiin iyo kuwa ayna u qornayn. markii dabeeto 80 sano dabadood ama 60 sano dabadood ama 40 sano dabadood baa waxaa la baaray ardaydii berigaa la eegay ee qorshooyin la weydiiyey inta uu qorshahooda u qoran yahay iyo intaan u qornayn. waxaa la ogaaday 80% inay ahdaaftoodii u fuleen kuwii ay qornaayeen. kuwii ahdaafdooda qoray ee buug ku daweynay ay ahdaafdooda u fuleen. kuwii kalena waxba ma fulin, nolosha way ka dhaceen. ahdaaftaada iyo nolosha waxaad ka leedahay qor. waxaasaan doonaya walaal, adigoo muslima oo Soomaaliya oo ilaahay subxaana watacaala garanaya ma is leedahay ilaahay wuu ku hoojinaya? maya, ilaahay taa wuu ka sarreeya walaalayaal. in allaha xayiyun kariimun yastaxyii an yarudda calaa cabdihi biyadayhi sifraa. ilaahay subxana watacaala waa mid xishood badan oo karaamo badan oo sharaf badan oo qiimo badan. ilaahay subxana watacaala wuu ka sariigtaa. ilaahay subxana watacaala wuu ka xishoodaa addoonkiisii oo gacmaha hoose ilaahay ku soo celiyo. walaal, ilaahay wuu ka xishooday inuu gacmahaagii oo maran soo celiye. adiguna ha ka xishoonin inaad ilaahay barida subxana watacaala. qorshahaaga waxaad ku dartaa inaad ilaahay barida subxana watacaala. aad baan idin wala salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.